الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. maanta waxaan ka hadlaynaa saxaabigii jaliilka ahaa albaraa bnu malik alansaariy radia allahu canhu. marka meesha hore wuxuu ku qoray lowla laa tuwalluu albaraa'a jeyshan, ciidan madaxa uga dhiginina min juyuushi lmuslimiina oo muslimiinta ciidankeeda ka mid a, makhaafata cabsi weeye an yuhlika inuu halaago jundahu ciidankiisa biiqdaamihi gelitaankiisa. waa nin aan gabbanayn. marka sayidina cumar baa hadalkaas yidhi, wuxuu mamnuucay in ciidan loo dhiibo, dagaalada ha ka qayb galo, laakiin marka dee waxay ku tusinaysaa maaragtay geesinimadiisa. iyo kaana wuxuu ahaa buu yidhi ashcatha, mid basaasaysan, akbara boor leh. xadiis bay noogu imaan doontaa insha allahu, nebigaa sidaa ku tilmaamay alayh salatu wasalaam. da'iila aljismi, jirkiisu uu yar yahay, macruuqa alcadmi, yani caato badan, taqtaximuhu caynu raa'iih, isha qofka arkahaya ishiisu si adag ay u arkayso, yani si xoogaa dhib ku jiro. uma intaas kadibna taswaru ay ka iilanayso, ka leexanayso canhu xaggiisa iswiraaran ka leexasho. markii lasoo fiiriyo dee qof caato badan oo basaas ka muuqato, oo yani wax ishu xoogaa aad u qabanaysa maaha, waa qof laga sii jeesanayo, saasuu ka wada. walaakinahu maca dalika, intaas maca dalika arrinkaa lala qabo saasuu yahay, qatala wuxuu dilay 100 oo min almushrikiina, mushrikiintii ka mid ah, mubaarazatan, mubaarazuu ku dilay dagaalka keliga ah, waxdahu keligi. caddaa can aladiina qatalahum, taas waxay ka soo haraysaa kuwa uu ku dilay fii khimaari lmacaariki, jamaacooyinka tirada badan ee dagaalada dhexdooda, maca almuxaaribiina, kuwii la dagaalamaya dhexdooda ku dilhayo. wax badanoo kale waa dilay, laakiin midda maaragtay qof iyo qof laysku soo baxayo, haaliban dadka soo baxaa marka dagaalada ayaa ku bilowda, dad geesiyaala wey. qof iska caadiya ma qaato inta qaato dagaal. marka rag wada haliyeeye ah oo 100 ah buu keligii dilay. waa ninkaa jismigiisu yaryahay, caatada ah, dharkiisana uu maasha allah wada yahay. inahu asagu alkamiyu, waa geesi hubaysan, albaasilu, libaax ah, geesinimada, almiqdaam, wax dhan waa wada geesi, laakiin gelidiisu ay badan tahay dagaalka uu galhayo oo dadka ugu horeeya yahay. alladii kaasoo kataba alfaaruqu, faaruq uu qoray, waa sayidina cumar bin khataab, bishahnihi arrinkiisa, ilaa cumaalihi, shaqaalihiisu u qoray, fil aafaaqi, ee naaxiyooyinka jira, allaa yuwalluuhu, inaysan madax uga dhigin calaa jeyshin jeysh oo min juyuushi lmuslimiina, muslimiinta ciidamadooda ka mid a, khawfan cabsi weeyo, min an yuhlikahum, inuu halaago biiqdaamihi, gelitaankiisaas ciidamada uu hore ka gelhayo oo uusan khatarta ka weecanin. inahu asagu albaraau bnu malik weeye, alansaariy, akhuu anas bni malik, wa anas bni malik walaalkii ka weyn weeye, khaadimi rasuulillahi sal alla alay slam, anaskii khaadimka nebiga ahaa. walow ruxtu, haddii aan wuxuu yidhi aan aado, astaqsii, inaan ka qisaynhayo oo laka adiga kaaga qisaynhayo, akhbaarahu, akhbaartiisa, akhbaara butuulaati lbaraa'i bin malik, geesinimadiisii iyo akhbaartiisii baraa bin malik haddaan dabcan yidhi inaan ka qiseeyo, kaaga qiseeyo, lataala alkalaamu, kadaa hadalkii waa badanhaya oo uu dheeraanhaya, oo wadaaqa waxaa ciriiri noqonhaya almaqaamu, maqaamka. lidaa sidaa darteed ra'aytu waxaan arkay, yani ila noqotay, ana acruda inaan ka jeesto oo laka adiga kaaga jeesto, acruda inaan soo bandhiga dheh, oo laka adiga kuu soo bandhigo, qisatan qiso oo waaxidatan oo keliya, oo min qisasi butuulaatihi, qisooyinkii geesinimadiisa ka mida, hal qisa ayaan ka sheegahayaa, wixii kaleeto dhan lagama gaaro. wahaya iyaduna tumbiuka, waxay kuu sheegaysaa camaa kii oo cadaaha ka soo haray, qisooyinka kaleeto hawlihii tirada badnaa oo kale, taas baa kaaga filan. tabda-u way ka bilaabanaysaa hadihi lqisatu, qisadan mundu saacaat, saacadihii laga soo bilaaba alulaa u horreeyey liwafaati nabiyi sala allahu aleyh wasalam, nebigii alkariimi wanaagsanaa
wafaadkiisii laga soo bilaabay ka bilaabanaysaa qisadaani iyo wa iltixaaqihi haleelidiisa nebiga calayhi salaatu wasalaam birafiiqi alaclaa rafiiqii sarreeyey uu haleelahayo xayثu meel weeyo dafiqat ay guda gashay qabaa'ilu lcarabi carab qabaa'ilkoodii takhruju inay ka baxayso min diin illaahi ilaahay diinkiisa afwaajan koox koox bay uga baxayaan kamaa dakhalad si ay u soo gashay fii diin illaahi afwaajan sidii diinka markii horeba ay magaalo magaalo iyo jamaaco jamaaco iyo qabiil qabiil u soo gelhayeen bixab haddana mid mid uga baxayaan iyo koox koox iyo magaalo magaalo xataa intii lam yabqa uusan ku harin cala alislaami islaamka ilaa ahlu makkata waalmadiinata waataa'if saddexdaas magaalo mooye wax alla wixii kale oo magaalaha waa gaaloobeen iyo wa jamaacaatun jamaacooyin oo mutafariqatun kala tagtagsan hunaa wa hunaak halkaan iyo halkaasi xoogaa iyadoo jooga ma ahee kuwaasoo minman ka mida qolo ka mida oo habatallaahu dad ka mida habatallaahu ilahay uu ku sugay quluubahum quluubtooda cala aliimaan iimaan aljaziira alcarabiya oo dhan ayadoo muslimaha nebigu ka tegay alayh salatu wasalaam kulligoodna diintii waa ka baxeen saddexdaas magaalo iyo dadyow yaryar oo meelaha jooga mooyaane waa arrin cajiiba maxaa marka la samayn doonaa samada wuu istaagay buu yidhi asidiiqu ridwaan ullaahi calayh abubakr sidiiq ilahay ka raali noqdee lihadihi alfitnati fitnadan wuu istaagay almudamirati ee wax burburinaysa alcamyaa'i ee indhahala sumuudaljibaali buuraha istaagidooda kale buurta meel kama dhaqaaqdo moogta alraasiyaati ee sugan buurihii meelaha ku sugnaa sidii buurtii oo kale yani waa qiso yaab leh sayidina abubakar waxa uu sameeyey mawaaqiftii uu ka qaatay iyo sidaasoo kaleto wey wajahaza wuxuuna diyaariyey min almuhaajiriina iyo walansaar wuxuu ka diyaariyey 11 jeyshan 11 ciidan ayuu diyaariyey waqacadda wuxuuna u guntay liqaadati hadihi aljuyuush ciidamadan oo midaan ah hoggaankooda 11 liwaa'an 11 calan wa dafaca bihim dafacadaani waxa weeye macnayaal badan ba iska leedahay oo mar waa difaac waa iska difaacay oo mar waxa weeye waa la dhiibay oo yani minhaajka afartiis rubaca waa ku jirtaa midba macno asagoo leh marka nin baa laga sheegay difaaca isbedesha marka hadda middaani waa uu u diray weeye ciidan buu dirhayaa weye wadafaca bihim ciidamada 11 wuxuu u diray fii arjaa'i jaziirati alcarab carab dhinacyadeeda kala duwan liyuciiduu inay soo celiyaan almurtadiina dadka diinta ka baxay ilaa sabiili lhudaa jidka hanuunka iyo walxaqi xaqa oo walyaxmiluu ay xambaaraan ay ku xambaaraan almunxarifiina kuwa ka leexday cala aljaadati jidkii toosnaaye siraadu mustaqiimka ahaa bixaddi seefi seef afkeed wax laga yeelahay mal murtadada waxba lagama dhegeysto inuu islaamo maahay moogta wa kaana wuxuu ahaa aqwal murtadiinta dadka diinta ka baxay kuwa kan ugu xooga badan ba'san xagga maaragtay baaska iyo wa aktharahum kan ugu badan cadadan xagga tirada banu xaniifata ayay ahaayeen reer banu xaniifa asxaabu musaylamata alkadaab musaylamihii beenlowga ahaa asxaabtiisa weeye waa qabiilkaasaa ugu darnaa faqad xaqiiqe ijtamaca waxaa kulmay limusaylamata u soo kulmay min qowmihi qoomkiisa iyo waxulafaa'ihim xulafadoodii 40,000 40,000 oo min ashidaa'i almuxaaribiin dagaalyahamada kuwa ugu daran 40,000 oo dagaalyahan oo khatarahu haystaa wa kaana wuxuu ahaa akharu haaulaa'i kuwaas badankoodu qad ittabacuuhu waxay ku raaceen casabiyatan qabyaalad bay ku raaceen oo lahu musaylamo u sugnaatay laa iimaanan iimaan ma aha oo bihi musaylamaha ay rumaysan yihiin faqad xaqiiqe kaana bacduhum barkood wuxuu ahaa yaquulu inuu yidhaahdo ashhadu waxaan qirayaa ana musaylama inuu yahay kadaabun kadaab wa muxamadan nebi muxamedna saadiqun saadiq uu yahay laakina kadaaba rabiica reer bari rabiica kadaabkooda ayaa axabu aan ka jeclahay ilayna xaggeenna min saadiqi mudar runlowga reer mudar
waxaan ka doorbidaynaa bay yidhaahdeen beenlowga Rabiica. Mudar iyo Rabiica waa isla dhasheen, waxaa weeye ilmo Nizaar bin Mucadi bin Cadaan. markaas waxay u kala baxaan carab oo dhan baa waxay u kala baxdaa Cadnaan iyo Qaxtaan, oo Yamana, iyo Cadnaan taan kuwa nebigu ka dhashay calayhi salaatu wasalaam. kuwaanina waxay u kala baxaan Mudar iyo Rabiica. marka maxay ku raaceen qabyaalad? weligeed baa balaaya jirtay sooma. qof aadan inuu beenlow yahay aaminsan tahay, diinlaawo yahay, waad dabagelaysaa oo naftaad u halligaysaa oo aakhiro seeg. waaye hazama musaylama wuxuu jebiyey awala jeyshin jeyshkii ugu horreeyey oo kharaja ilayhi asaga xaggiisa u baxay oo min juyuusi lmuslimiina muslimiinta jeyshkeeda ka mid a biqiyaadati cikrimati bni abi jahl. saxaabigii jaliilka ahaa ayaa hogaaminayay oo ahaa cikrima bin abi jahl. waraddahu waana u celiyey ilaa caqaabihi, meeshuu ka yimid khalaas waa jabeen ciidankaas. faarsala wuu diray lahu musaylama wuxuu u diray asidiiqu sayid abubakr radi allahu tacala canhu jeyshan ciidan oo haaniyan labaan biqiyaadati khaalid bin waliid. ciidankan waxaa hogaaminaya khaalid bin waliid radi allahu canhu. xashada wuxuu ka buuxiyey fiihi dhexdiisa ciidankaas wujuuha saxaabati, wejiyaasha saxaaba oo min alansaari walmuhaajiriin ah. dadka ugu qiimaha badnaana waa wataa. ciidankan waa ku guray oo waa ku cubay. waxaa ka mid a abudajaana iyo abu xudayfa iyo saalim mawla abi xudayfa iyo wax alla wixii cajiib ahaa oo nebiga la soo dagaalami jiray oo saabiqiintii badriyiintii kulli ciidankaana ku jiraan. wa kaana fii طalicati haaulaai, kuwaas kuwa ugu horeeyana waxaa ku jiray iyo wa haaulaai wuxuu ka wadaa waa ansaar iyo muhaajiriin. albaraa bnu malik baa ka mid ah alansaariyi radi allahu tacala canhu, iyo wa nafarun jamaaco oo min kumaatil muslimiina muslimiinta geesiyaashooda waa ku baxay. iltaqa aljeyshani labadii ciidan baa kulmay calaa ardi lyamaama, meesha yamaama la yidhaahdo oo fii najdin ka mida. alyamaama dhulkan maaragtay baxrayn iyo riyaad iyo dahraan meelyagaas weye. halkaasay ku kulmeen. reer bani xaniif u deganaan jirin weye. famaa huwa ma ahaanin ilaa qaliilun wax yar maahay xataa rajacat intii ay rajaxnaato kafatu musaylama kafadiisii iyo asxaabihi. yacni dagaalkiisoo ma bilaaban oo ma socdo, waxaad moodaaba inay guulaysan doonaan musaylama iyo ciidankiisii. wazulzilat waxaa la gariiriyey alardu dhulkii taxta aqdaami juyuushi lmuslimiin. ciidankii muslimiinta cagahoodii hoostoodii baa dhulkii ka gariiray. yacni waxa uu ka kinaayoonhayaa waa sii jabi rabaan. watafiquu waxayna bilaabeen yataraajacuuna in ay soo laabanhayaan can mawaaqifihim ka soo laabanhayaan meeshii ay taagnaayeen, xataa intii iqtaxama uu ka gala asxaabu musaylama asxaabtiisii ciidankiisii fustaada khaalid bn alwaliid, teendhadii u dhisnayd ee khaymadii meeshii taliska dhan looga talinhayay bay soo galeen ciidankii musaylama. waqtalacuuhu min usuulihi, waaba rujiyeenba maaragtay xididada u rujiyeen iyo udubadii ay ku taagnay. wakaaduu waxayna ku dhowaadeen yaqtuluuna inay dilaan zawjada khaalid bin waliid lowlaa an ajaaraha lowlaa haddii uusan magan gelin lahayn waaxidun oo minhum mid ayaga ka mid a gabadhaha dilina faraha ka qaada. cinda dalika arrinkaa agtiisa shacra lmuslimuuna muslimiintu waxay dareemeen bilkhatari khatarkii addaahimi ee ku soo kadiyey ee weynaa. waa khatar culus weeye. wa adrakuu waxayna haleeleen oo ogaadeen annahum ayagu in yuhzamuu haddii la jebiyo amaama musaylama hortii haddii ay ku jabaan falan taquuma uma istaagi doonto lilislaami islaamka qaa'imatun taagnaan dambe bacda alyowm haada maanta kadib. haddii ciidankaani jabo ciidanka ugu qiimaha badnaa hadda khalaas. walan yucbad allah mana la caabudi doono ilaahay waxdahu keligii oo laa shariika aan shariig lahayn lahu asaga u sugnaanin fii jaziirati alcarab. jaziirat alcarabiyana ilaahay keligii laguma caabudi doono. dadkiiba diinta waa ka baxeen. haddaan ciidankan guulaysan rajadu waa xunta.
wahaba wuu kacay khaalid bin waliid ilaa jeyshi jeyshkiisiibuu ku kacay. hadda waa qaa'idkaad garanaysaan weligiiba lagama guulaysan baa leeyahay. geesinimada keliya ma aha, taqwada keliya ma aha, labadaasba waa uu lahaa. laakiin nin yahuuda oo jaamacad ka dhiga Tel Aviv wuxuu yidhi, wuxuu dhigaa yani ciidamada iyo taariikhdooda iyo waxaasoo dhan baan baaray buu yidhi. khaalid bin waliid wuxuu ahaa most strategist, yani ninka ugu istiraatiijiyada fiican intaan arkay buu maqlay buu ahaa. yani ciidanku dagaal iska gal waa inuu istiraatiijiya timaadaa. marka ilaahay taasuu ku guuleeyey, asbaabihii lagu guuleysanayo dhan buu la imaanaya. ilaahay baana degbuusha gacantiisa ku jirtaa. faacaada tandiimahu, ciidankii nidaamkiisii buu soo celiyey. xayثu meel u fiirsa wuxuu samayn doona. mayaza wuxuu soocay almuhaajiriina can ilansaar. horta muhaajiriin iyo ansaar kala baxuu yidhi. wamayaza abnaa'i albawaadi, dadkii reer miyiga meelaha ka imaanhayay iyagana waa uu soocay. can haaulaa'i wa haaulaa, kuwaba kuwu ka saaray. wajamaca wuxuu kulmiyey abnaa'a kulli abin, aabba kasta kuwii wiilashiisi, yani intii walba oo aabba ku abtirsanaysa, taxta raayati waaxidin minhum, mid ayaga ka mida oo dee calan wata hoostiisu kaasaa idin hogaaminaya. liyucrafa, si loo ogaado, balaa'u kulli fariiqin, fariiq kasta geesnimadiisa si loo ogaado fi lmacrakati dagaalka, oo waliyuclama la ogaado min ayna meeshii oo yuutaa ay uga imaanayso almuslimuuna muslimiinta yani jabku meeshuu ka imaanayo, meesha muslimiinta laga soo galayo oo laga jabinayo waa in la ogaadaa. dadku kulligood difaac baa lagu wada jiraa iyo dagaal, meel baa khalad ka dhacaya, khaladkaasi loo ogaado, qolo walba meel buu geeyey. wadaarat, way wareegsatay bayna alfariiqayni, labadii fariiq ee musaylamo iyo muslimiintii, raxa macrikatin baa wareeg macrako dagaal. waa hadal la iska isticmaalo oo geedkan raxaa waxaa la yidhahdaa midka makiinada lagu shiido, maaragtay ratiga ama faraska uu shiidayo saa isaga daba wareegaya. marka macrakada ama dagaalku markii uusan ur iyo jaha lahayn oo isku baaba'ahayo baa loo isticmaalaa. daruusin, macrakadaasoo wuxuu yidhi dagaalkaasoo daruusin daran wey oo halaagta wey. lam tacrif, aysan aqoonin xuruubulmuslimiina, lam tacrif ma taqaano xuruubulmuslimiina muslimiinta dagaaladoodii lahaa ayada nadiiran, wax la mida mithaal ma leh min qabl horay. yani intii wax dagaal la soo gelahayay tanoo kaleta ma dhicin, muddo ugu darnayd bay noqon doontaa. wathabata, waana ay sugnaadeen qowmu musaylamata, musaylamo qoomkiisiina waa sugnaadeen fii saaxaati alwaqaa, meeshii dagaalku ka dhachayay saaxadiisii ayay ku sugnaadeen. thabaata aljibaali araasiyaat, buuraha sugnaantooda kaleeto oo dheerdheer. walam ya'bahu, mana aysan danayn likathrati maa asaabahum, badnaanta waxa ku dhacay oo min alqatli ah. aad bay u dhimanayaan laakiin weli waa soo taagan yihiin. wa abda almuslimuuna, muslimiintuna waxay muujiyeen min khawaariq albutuulaat, geesinimo khaariqu caadahay muujiyeen. maa kii oo low jumica haddii la jamciyo lakaana uu ahaan lahaa malxamatan. malxamo waxaa la yidhaahdaa dagaalada gabayada iyo sheekooyinka iyo adduunka isku wata, waxaaso dhan markii laisku kulmay ee malxamata min rawaaci malaaximi, malaaximta kuwii ugu yaabka badnaa ka mida. hadda kelimad maarata af soomaaliya oo kolley waa un dagaal malxamadu, laakiin dagaal iska caadiya maaha. malxamo waa qisas iyo hawlo iyo gabayo iyo waxaasay wadataa. فهذا كان ثابت بن قيس وي، ثابت بن قيس بن شماس وي، حامل لواء الأنصار، أنصار علن كذا نكر حبارسن وي، يتحنط حصمنا يعني حناط وحليل هذا كفنت ميت كمارت كافور كي حيوها عرفون الله مريو السجي النول أيو كفنتيسي ويتكفن واسكفنا هيا عندما شق ترى قليوي كفنتي وحرتينا
ومري حبيب ميت كان لو مرين شري ويحفره وحو قضي لنفسه نفتي سنة حفرة بأوقته في الأرض لوكا كسوغان أو فينزل فيها وكدشينها يدحدد إلى نصف ساقه إلى أي مارتي ساقيسا أما محل لها دودونكيسا دحديسا قد شوغنا واو قطي وسربين وكبحه ويبقى وحونا باقي هذا ثابت الحال وهي مد كسوغان في موقفه ماشي ساس يعني مرة إنه كدقاقه يجادل حاله يهي مد مارتي دقالما هي يعني جادلتمها لما دهوا سيف هذا وحو كوحين هي عن راية قومه قوم كيساس علن كيسا أيو دفاعها حتى خرنا أنتو كدعا صريعا حاله يمدلك كدعا شهيدا أو شهيدا لو كد انتي ودقاله ما دقاقين نكاس وحوي وقيس بن ثابت بن قيس بن شماس وخطيب النبي عليه الصلاة والسلام وفعادي ما markay qolyo intay yimaadaan la isugu faano naga aftahamaho waxaa la rabaa qof inta halkaas soo istaaga irtijaal maaragtay khudbo u akhrinayo meel warqad ka akhrin maayo sooma diyaarsan madaxdan aad aragtaan waa loo soo diyaariyaa wax la soo akhriyey waa loo soo waxaya maya waxaa la rabaa qof iska meesha inta soo istaaga hadal qiimo leh oo jeedinhaya markaasuu in alla inta gaalo timaada wuu ka badin jiray nebigu u jawaab صحابي قاسي هالكاس كل شهيد رضي الله تعالى عنه وهذا زيد بن الخطاب كان هو زيد بن الخطاب أخو عمر بن الخطاب وكوينه رضي الله عنهم الله بدأ الله كرامه ينادي في المسلمين وحوقيرها يا أيها الناس ضدوا عضوا على أضراسكم قصدم بيدينا قنين ليه وضربوا قراعة في عدوكم عدوين وامضوا صعدا قدما حالتهم كوا هري أقلها يا دقالك أيها الناس دادو والله بان كل أرتي لا أتكلم حل ما هي بعد هذه الكلمة كلمة دان كذب حل ما هي أبدا ولقي حتى يهزم أنت اللي جتش بيو مسيلمة أو أمس ألقى الله إلهي أن لكم أو فأدلي أن دليل سدد إلهي أدلي سدد بحجة حجته أنا قلت أنت أنا هذا النفط إذا سدليلي هو إلهي ربي وأنا شهيد هاي أما لا تشبيه مسلم wax ka dhaxaya mal ثم كر على القوم قومك أيو كدولي oo dagaalkii buu galay فما زال كما زولين يقاتلوا inuu dagaalamayo حتى قتل inta laga dilo سيد عمر baa dhihi jiray islaamnimadana waa iiga horreeyay buu yiri shahaadadana waa iiga horreeyay وهذا سالم وسالم مولى أبي حذيفة أبي حذيفة صحابي جاء أبي حذيفة بن عتبة بن ربيعة dadkan waa dadka ugu hor islaamay بدري waxa iskoon rag ka ku islaamay Abu Hudayfa iyo Salim oo mawliisa adoonkiisu waa xoreeyay raggan quraadi quraanka weey ragga quraanka xafidsanaa mar kastana ma waa wada socdeen Abu Hudayfa iyo Salim mawla Abu Hudayfa xadiidka aad garanaysaan radaacul kabiir kada ninkii سالم سالم isagoo yar wuxuu ahaa adoonka maartay wuu xoreeyay laakiin wuu la soo koray marka gabadhii uu qabay markii ninkii soo qaangaaray oo wali gurigii uu jooga caruurteedu ka mid yahay xoogaa marka arrinkaasna waa tuu uusan jeclaysan Abu Hudayfa oo nebigu yiri nuuji waa isaga loo ruqseeyey oo uu nuujiyay saa hooyadii ku noqotay oo salaada ka jabinayn laakiin qof kasta miyaa marka intuu qaato naaga la naagto aragtid iska nuuga waxaas wax sax maaha saxaabaduna waa diideen waa ruqsa nabiga uu siiyey calayhi salaatu wasalaam marka mawla abi xudayfa saalim radiallahu tacaala canhu yaxmilu wuxuu xambaarhayaa raayat almuhaajiriin dadkii muhaajiriinta calankooda isagaa wada fayakhsha calayh qowmkiisi waxay ka cabsadeen asagii u baqeen an yadcufa inuu jilco oo maaragtay uu daciif noqdo oo yatazaczaca uu maaragtay argagaxo ama maaragtay si u ruxmo faqaaluu lahu markaas ku yidhaha ina anagu la naqshaa waxaan ka cabsanaynaa an nuutaa min qibalak xaggaaga in lakaga yimaado faqaala wuxuu yidhi saalim
in uutiitum haddii laydinkaga yimaado min qibali aniga xaggayga fa bi'sa xaamilu lqur'aani akuun waxaa baas leh mid qur'aan xambaarsan oo akuunu aan aniga ahay haddaan inta anugu cararo ama cabsado xaggaygaas laydinka soo galo xaamilulqur'aan khayr laba ma ah dadka xamalatlqur'aanka ahi waa ka duwan yihiin dadka kaleeto waa inay ka dhaqan duwanaadaan waa inay ka jihaad duwanaadaan waa inay qur'aanka ku camalfalaan soo maa uma intaas kadib kara calaa acdaa illaahi karadu yani waa qofka markuu galo weeraro weeye acdaaillahi cadowgii ilaahay karatan weerar oo baasilatan oo libaxnimo ah xataa usiiba intii laga asiibo intuu ka dhinto meeshan waa lagu hoobanhayaa waxaa ku dhimanhaya 700 oo nin oo ninkaasoo kaleeto iyo ka daran ah dadka sayid cumar iyo sayid abubakar qur'aanka in la aruuriyo waxaa keeni doona raggii qur'aanka xafidsanaa o dhan meesha ku dhiman doona markaasoo raggaa lama soo sheego walaakina butuulaati haaulaa raggaa geesinimadooda jamiican dhammaantood tatadaa'alu way yaraanaysaa amaama butuulati albaraa bni maalik radi allahu canhu marka geesinimada baraa bni maalik oo hadda maanta aan ka hadlayno la hor keeno geesiniyaashaas cajaa'ibka leh oo weligood soo dagaalami jiray wax yar bay noqonaysaa buu leeyahy ilahay ka raanwada iyo wa canhum ayagana allah ka raanwada ajmaciin dhammaantood daalika arrinkaas ana khaalidan sayidina khaalid xiina ra'aa markuu arkay watiisa almacrakati dagaalkii watiis waxaa la yidhahdaa meesha lagu duwo muufada iyo tanuurka ah marka dagaalkii tanaarkeedii baa yaxmaa karkaray oo wayashtaddu yani waxaa laga wadaa dagaalkii baa wuxuu noqday mid aad u daran meesha hadda wax karkarhaya oo gaari ma yaalaan wayashtaddu wuu darnaaday iltafata wuxuu milicsaday ila albaraa bni maalik khaalid bin waliid baa milicsaday wa qaala wuxuu yidhi ilayhim yaa fata alansaar wargal buu yidhi adugu niyahu waad u jeedaa waxaa jire faltafata albaraa wuu soo isaguna milicsaday ilaa qowmihi qowmkiisiiyo wa qaala wuxuu yidhi yaa macshar alansaar ansaaray laa yufakiranna axadun minkum mid adinkayn ka mid ayuu ku fakarin birujuuci ila almadiinati madiina inuu ku laabto meel iska dhigataa falaa madiinata lakum bacda alyowm maanta kadib wax madiina la yidhaha ma jirto meeshaana ku wada dhimanaynaa wainamaa in kalamaa huwa asagu allah weeye waxdahu keligiis uma aljanna intaas kadibna waa janno wax war kaleo meeshaan ka shaqaynaya ma jireen aan dhimanno uma intaas kadib xamala wuu xambaaray cala almushrikiina mushrikiintiibuu yani wuu ku qaaday wey wahuwa xamaluu macahu ansaartiina macigiisay ku qaadeen wambaraa wuxuu gudagalay yashuqu inuu jeexayo assufuufa sufuufta oo yucmilu uu ku samaynhayo assayfa sayfta fii riqaabi acdaa'illaahi ilaahay cadowyaashooda qoortooda dusheedu ku samaynhaya wax alla wax ka hor yimaado waa madaxu ka jarhaya xataa zulzilat intii ay ka gariirto oo ka gadgadoonto aqdaamu musaylamata musaylamo gomadihiisii iyo wa asxaabihi asxaabtiisa oo falaja-uu ay markaa galaan ila alxadiiqati xadiiqadii beertii allatii taasoo curifat lagu aqoonsaday fi taariikhi taariikhda bacda dalika arrinka kadib bismi xadiiqati almowt beertii dhimashada baa loo bixiyey waa likahrati man qutila fiiha badnaanta dadkii lagu dilay dhexdeeda weeye fii dalika alyowm maalintaas muslimiin iyo keyrkoodba waa xadiiqat lmowt waa jardiinkii geerida kaanat waxay ahayd xadiiqat lmowt xadiiqadii dhimashadu waxay ahayd haadihi oo tan ah raxbat larjaa'i dhinacyadeedu mid ay waasac tahay saamiqata aljuduraani derbiyadeeduna ay aada u dheer yihiin fa aqlaqa wuu xiray musaylamatu musaylama wuu soo xiray marka intay dalq yidhahdeen meesha ku carareen derbiyo dheerreerna waa leedahay albaabkiina waa la soo xiray waalaalaafu kumayaalkii almu'alafatu ee laisku soo dumay oo min jundi ciidankiisa ka dimna calayhim dhexdooda calayhim dushooda ay yihiin abwaabuha albaabadeeda wa taxasanuu
waxayna isku ilaaliyeen bicaali judraaniha derbiyadoodaas kuwa ugu sarreeya meeshii waana galeen korna waa soo fuuleen wajacaluu waxay yeeleen waxay bilaabeen ama guda galeen yumtiruuna in ay soo ridahayaan sidii madarkii oo almuslimiina ku soo ridahayaan binabaalihim fallaarahooda min daakhiliha bay ka soo ridahayaan fatatasaaqadu way soo dhacaysaa calayhim dushoodayna ku soo dhacaysaa gagbownadii tasaaqutal matari sida matarkii oo kale maaragta bay u soo ridahayaan oo u soo dhacaysaa nimankii waa carareen meeshii xadiiqatulmowt bay galeen derbiyadii waa fuuleen waxay isku ilaalinahayaan fallaarahaasna waa soo ridahayaan fallaaruna waa fallaaro sumaysan wey qofka ku dhacan waa bis wey cinda daalika arrinka kadib taqadama waxaa soo hormaray miqwaarulmuslimiina muslimiinta geesigoodii albaasilu ee libaaxa ahaa albaraa bnu maalik wa qaala wuxuu yidhi yaa qowmow dacuunii igu dejiya calaa turasin gaashaamada maarata inta gaashaamo isugu dhejisaan aniga dusha ha layga saaro warfacu turusa markaasna gaashaamada kor ugu qaada cala rimaaxi warmo uma intaas kadibna aqdifuunii igu tuura ila alxadiiqati xadiiqadii musaylamo iyo ciidankiisii iyo musiibo dhan ku jirtay qariiban min baabiha albaabkeeda meel u dhow halkaa igu roday faima an astashhad inaa ama waxaa weeye aan shahiido wa ima an aftaxa lakum albaaba iyo inaan albaabkaan kafradaas mid noqonaysaa mana kala jecla labadoodaas وفي لمح البصر يعني البرقسي جلس وحو كفريستي البراء بن مالك رضي الله عنه على ترس gaashamadii buu ku fariistay faqad kaana wuxuu ahaa da'iila aljismi yani waa midda hore usoo sheegnayo jirkiisu miduu yar yahay buu ahaa naxiilow caata ah warafacathu waxaana kor u qaaday casharaatu rimaaxi tobanaan maaragtay oo warmo ah fa alqathu waxay ku tuurtay fii xadiiqati lmowti xadiiqati lmowtkii baa lagu riday bayna aalaafi almu'allafati kumayaalkii la isku keenay oo min jundi musaylamata ciidanka musaylama ka mid halkaas dhexdeeda dalq ugu siiyey fa nazala calayhim wuu ku soo degey nusuula saacaqati biriq oo kaleeto buu ugu soo degey wamaa zaala kamana uu zuulayn yujaadiluhum inuu la dagaalamayo amaama baabilxadiiqati xaqiiqada albaabkeedii inuu kula dagaalamayo oo yucmilu fii riqaabihim qoorigtooda uu ku samaynhayo asayfa sayfa xataa qatala intuu ka dilay 10 oo minhum ayaga ka mida oo fataxa albaaba albaabkiina furay wa bihi ay ku sugan tahay bidcun dhowr iyo 80 jaraaxatan 80 dhaawac baa ku yaala oo min bayni rabyatin bisahmin ow darbatin bisayf oo ah waran lagu soo ganay gabuun lagu soo ganay ama seef maaragtay lagu dhuftay ah markaa 80 dhaawacna waa ku dhacday albaabkiina fur fatadafaqa almuslimuuna yani saasay ugu soo daateen marka almuslimuuna muslimiinta calaa xadiiqati lmowt xadiiqadii dhimashaday ku soo min xiitaaniha jidaaradeedii iyo wa abwaabiha albaabkeedii wacmaluu waxayna sameeyeen asuyuufta fii riqaabi lmurtadiina kuwii ilaahay diinkiisu ka riweeday qoortooda allaayidiina magan galahayay bijudraaniha jidaaradooda xataa jidaaradeeda xadiiqada xataa qataluu intay ka dileen minhum ayagii qariiban waxa ku dhow min 20,000 20,000 oo wasaluu waxay gaareen ilaa musaylamay gaareen oo faarduuhu way halaageen musaylamihii sariican xaalu yahay mid dhulka ku dhacay wax shay yaa dilay hadda halkan ku u sheegi maayo iyo nin kaleeto asaguna ansaara musaylamana la dil ayagana 20,000 baa laga dilay waa khalaas waa jabeen si la yaqaano u jabeen xumila waa la soo xambaaray albaraa bnu maalik ilaa rixlihi baa loo soo xambaaray meeshii gaadiidkiisii liyudaawa
si loo daaweeyo fiihi raxliga dhexdiisa raxliga wa aqaama calayhi yani meeshii la deganaabaa la keenay wa aqaama calayhi khaalid ibnu bulayd shahran yucaalijhu uu daaweynhayo halkaas khaalid ku nagaaday buu yidhi yucaalijuhu uu daaweynhayo min jiraaxihi dhaawacyadii buu ka daaweynhaya xataa adina allahu ilaahay intuu ka idmo lahu asaga oo baraa binu maalika bishifaa'i caafimaad wa kataba wuxuuna qoray lijundi lmuslimiina ilaahay wuxuu u qoray jundiga muslimiinta calaa yadayhi labadiisa gacmood annasra nasr baa yani guul yani guushaas la gaaray asaga u sabab ahaa waayahay qisadii baa noo socota dalla wuxuu ahaaday baraa bnu malik alansaariy yatuuqu mid u hamuuman ila shahaadati shahaado allatii taasoo faatathu ka tagtay yowma xadiiqati lmowt maalinta hadda dadkana wuxuu kala ballamay in la dhinto asagiina ma dhiman moogta tiibuuba u hamuunsan yahay oo rabaa watafiqa wuxuu gudagalay yakhuudu inuu galahayo almacaarika dagaalada waaxidatan bacda ukhra midba midda ka dambayso welida fatxil islaamigii baa socda shaam iyo furus iyo kulli waa dagaaladii baa socda ugu badnaa markuu dagaalku riddada wuu soo dhammaaday midii ugu xooga badnayd markay tan ay laga adkaaday musaylamo waa soo sheegnay saa ugu adkaa kaa markii laga takhalusay kuwii bani tamiim iyo sajaax iyo khaalid bin weliid tartiib ba uga takhalusay sayid abubakarna horey u socuu yidhi oo faris buu wuxuu yidhi gal wuxuu galay dhowr iyo 10 dagaal oo kulligood ku wada guureystay farisiintii uga guureystay ayib marka dagaaladaasuu ku jira wuxuu dagaaladaas u galaa shawqan jacayl weeye ilaa taxqiiqi umniyatihi rajadiisaas uu rabo inuu maarata xaqiiqsado alkubra ee weyn waa midda maarata shahaadada ah iyo waxaniina ila lixaaqi iyo ololid yani jacayl dartii ila lixaaqi inuu haleelo binabiyihi nebigiisa alkariimi ee suubanaa sala allahu aleyh wasalam xataa kaana intuu ka ahaado yowma fatxu tustur ilaa ay laga soo gaaro furashadii magaalada layaa tustur kazakhistan yaa la yihahda gobolkaasay ku taallaa iiraan weeye waa magaalo yaab leh oo min bilaadi faris ka mida faqad taxasana waa ay ku ilaaliyeen alfurusu furusku fii ixda alqilaaci qilcooyinka midood bay ka dhigeen almumaradati waa fiir haddii saa loo taabto xataa lama qabsan karo waa wax sidib ah ee sidibta ah wey ee daran muslimkii baa yimid faxaasarahum almuslimuun muslimiintii baa xisaar ku sameeyey wa axaaطuu bihim way isku ilaaliyeen way isku koobeen ixaaطata asiwaari jijinka isku koobidiisa oo kale bilmicsami micsam halkaas somaali qofkii ku yaqaan hasha halkan ma calaacasha maaha dhudhunka maaha camaacun miya meesha ya meeshaas maara micsam halkaasaa la yidhaahdaa marka dee siwaarku sida uu siwaarka bahalka la yidhahdo jijinka halkan soo dhudhuwaanaya soo kulligiis kuma koob saasoo kale magaaladii isugu hareereeyeen buu leeyahy falamaa taala alxisaaru xisaarkii markuu dheeraaday washtadda albalaa'u dhibaatadii ay badatay cala furusi ku badatay jacaluuhu waxay sameeyeen yudalluuna waxay soo laalaadinhayaan min fowqi aswaari alqalcati qalcada suur baa ku waxaysan qalcooyinna waa leedahay suurkaas siwaar iyo hadda suur ismalaya suurku waxa weeyaan waa de suurka magaalooyinka lagu samayn jiray si aan loo soo weerarin maba la soo geli karo magaaladii laakiin qalcay leedahay salaasila ayay ka soo laalaadinhayaan oo min xadiidin bir ah culliqat waxaana ku xiran bihaa silsiladahaas kalaaliibu jahannama maasha waa biro iyaguna qalqalloocan oo weye oo min fuulaadin ka samaysan fuulaad waxaa la yidhaahdaa waa bir
iyo sulfur carabiga kabriid baa lagu yihahdaa af soomaalida kaa sheegi doona yani waxaana bir way horta bir iska dhex waxaan laakiin de biraha tiro badan soo maaha macaadintoo dhan waa wada biro ayaa magacyasii kala leh marka bir laakiin wax ku darsan yahay wey xadiid oo keligiisa waa bir laakiin xadiid iyo sulfur la isku daray waa laba birood la isku daray wey xumiyat marka waa la karkariyey bahashan binnaari naar baa lagu karay birta birahan xataa hadat intay ka ahaatay ashadda tawajuhan mid ka kulayl badan min aljamri dhimbil daba waa ka kulul badan tahay birahan waa cad yihiin waxa ay soo laalaadinhayaan fakaanat waxay ahayd tanshabu dheh waa ku dhegaysaa wey fii ajsaadi lmuslimiina muslimiinta waxaan ay soo laalaadinhayaan iska soo laalaadin mahay dadka kusoo tuuraya waana qabsanaysaa qofka waana naar oo tacallaqu waa ku dhegaysaa biha iyadii fayarfacuunahum way kor bay u qaadanayaan iyadii bahashii salaasidihii ilayhim xaggooda qof korna markaas qofkii ay ku dhegan tahay buu ku qaadaya birtu waana qalloocan tahay af bay leedahay waa qabsanaysaa qofka waana naar waana waxay waa ku dhegayaan dabna wey markay kor ugu qaadaan xaggooda maxay noqonayaan muslimiintii imaa mowta waa qof dhintay waa kuwa dhintay wa imaa calaa washki lmowt ama mowtkii bay dhinac qarka ka saareen wax musiibahay soo ridahaya facalliqa waxaa ku dhegay kullaabun mid hal oo kalbad oo minhaa kalaabiibtaas ka mida bianas bni maalik bay ku dhegtay akhi albaraa bin maalik waa wiilkiisa ka yaraa famaa an ra'aahu markuu arkay albaraa xataa wathaba waa ku booday calaa jidaari lxisni yani xisnigii derbigiisa xusuuntii ay ku jireen wa amsaka wuxuu qabsaday bisilsilati silsilad wax la qabsan karo maaha allatii taasoo taxmilu xambaaraysa akhaahu walaalkii wajacala wuxuuna bilaabay yucaaliju inuu farsamaynahayo alkulaaba kulaabkii liyukhrijahu si uga saara min jasadihi jasadkiisa faakhadat yadahu gacantiisay qabsatay faakhadat waxay guda gashay sheekhan kelmado cajiibu iska isticmaalahayaayo jacala wuxuu isticmaalahayaa iyo akhada iyo dafiqa waa isku wada nooc afcaalu shuruuc baa la yidhaahdaayo jumlada ka dambaysana khabarkeedii weeye yadahu yadiisii waxay bilowday taxtariqu in ay maaragtay ay gubanayso oo watudakhinu ay maaragtay hurayso qaac ka baxaayo falam yaabah marka dankama uu gelin lahaa ayadii waxaas gubanahayay xataa anqada intuu ka badbaadiyey akhaahu walaalkii oo wahabata uu ku soo dhaco ilaa ardi dhulka bacda an hadat kadib markay ay ahaatay yadahu yadiisa cidaaman lafo oo laysa calayha laxmun aan dusheeda wax xiliba lahayn gacantii waa hasheeg wa fii hadihi almacraka macrakadan oo midana dacaa wuxuu beriyey albaraa binu malik alansaariy reer ansaar loo nasibeeyey allah ilaahay buu beryey an yarzuqahu inuu ku irsaaqo ashahaadata shahaado faajaaba allahu ilaahay waa uu aqbalay ducaahu ducadiisii xayثu meel oo khara uu dhacay sariican xaaluu yahay mid dhulka yaalla shahiidan shahiid ah muqtabitan kamana haya biliqaa illaahi ilaahay maaragtay la kulankiisa rajaynhayo oo raba oo ilaahay ka baryaya inuu maarata ilahay la kulmo okay marka wax yar aan dib ugu laabano isagu kama sheekayn ma ogtahay tustur laakiin tustur mawqacadaasi waxay dhacday sanadkii 17aad ee hijirada waa magaalo iiraan ku taalo goboladeeda dhexe ah marka waxaa ka horreysay dagaalkan alqaadisiya ka horreysay waxaa ka horreeyey almadaa'in waxaa ka horreeyey jaluula meelaha ay ku dhacayso yaasaariyatil jin waxaasoo dhan waa ka horreeya dagaalo waaweyn be madaa'in waa caasimadii qaadisiya waxay ahayd dagaalkii lagu kala baxayey kuwii kadib marka ninkii boqorka ka ah yazdajrid
waa cararay caasimadiisii la qabsay laakiin dee dhulka ilaa iyo hindiya ay haysteen niman tiradii ka batay bay ahaayeen iyo adduunka intii kala bar haysta hadba waxbuu soo keenhayaa ciidamuu meel ka soo aruurinaya muslimiinta lala dagaalo mulkigiisii waxayna adugu marka waxaa jiray nin hurmusaan la yidhahdo qaadisii wax ka galay hurmusaankaasi marka cahdi buu la galay muslimiinta inuu jizyana bixinayo muslimkan uu la dagaalin waa buriyey mid kaluu la galay waa buriyey mid saddex maalin walba cahdigaasu buriya waa geed makaar ah ciil ay ugu dhinteen muslimiintu tustur isagaa jooga markaa isagaa meesha madaxka ah wax alla wixii la soo marhayay dagaal iyo magaalooyin la soo marhayay magaalada tustur waa ka duwan tahay xagga xasaanadda marka la yidhaahdo ilaa suur bay leeyihiin magaalooyinku adag marka kuwii madaa'in iyo jaloola iyo oo aadka u adkaa udhinkooda tanaa ka daran tani waxay leeyihiin weligeed baa iyadoo kale lama arag taariikhda derbi baa ku wareegsan derbiga mid kaleetaa kusii wareegsan labada derbi dhexdooda waxaa u dhexeeya meel ay qodeen oo biyo ah magaalada webigaa soo gala webiga biyihiisii kor bay geynayaan magaaladu waxay leedahay masaaric bay leedahay iyo beero biyo la-aanna kama jirto muslimiintii marka waa hareereeyeen soo maaha hareereynta macnaheedu waxaa weeye markii magaalada lama geli karo ciidan khataraha jooga oo fallaaro haysta oo waxaas kalaaliibtaas cadaabkaas marka lama geli karo ayaguna waa soo baxahayaan inta soo baxaan oo muslimiinta weeraraan marka xoogaa shakada ku xumaatana meeshooda ku cararahayaan waxaa xisaarka marka loogu talagalay waayihii hore magaalada marka xisaar lagu sameeyo oo meel walba laga koobo dee biyaha ka go-aya raashinkaa ka go-ahaya waa isdhiibahayaan magaalada waxba ka goy mahayaan loomana daadan karo oo waxaan ay soo ridahayn waxaaba ka daran suurkii mid kala ka sokeeya biyaha ka sokeeya weyn oo si lagu tagaba lama arkabo yacni waa shifu mustaxiil in meesha la galo risqigu dadkan ka goy maayo biyana waa haystaan beerana waa haystaan imisay marka joogeen mataqaana imisay halkaa muslimiinta joogeen hal sanay bar 18 bilood bay joogaan 18 bilood adigu guryahaaga ma joogtaa iyo guryahoodii bay joogaan cunto ma haysatid oo baad iyo meel dabaylaha taaganta waa dhibtoodeen aad bay ugu dhibtoodeen niman sidaad uga dhammaanahay maaha maalin walba waa soo weerartamayaan hadhowna waa cararahayaan dhibkii waa gaaray muslimiinta meesha waxaa isugu yimid jeish tiradii ka batay oo sayid cumar uu soo diray oo abu muusa alashcari iyo maxaa la dhahaa nucmaan bin muqarin iyo rag haliyeeye ah ka buuxa maxaad qaadi kartaa meeshiina ma geli kartid waktigii dhirkii ka baday wax isdhiibhaya lama arko dagaalku waa isaga socdaa maalin walba saxaabada waxbaa ka dhimanaya war maxaa la sameeyaa see yeelnaa meeshan haddaan 10 sano joogna xataa nimankaan isdhiibhaya mana geli karneen war nin baa yidhi anaa tala idin waxaa nagu jira nin nebigu yidhi calayhi salaatu wassalaam ruba ashcath akbar dii tamirayn laa ya'bahu low aqsama cala allahi laa bara nin waxaa nagu jira nebigu minhum baraa bin maalik waa xadiis saxiixa wuxuu yidhi waxaa jira mid basaas leh oo boor leh oo aan wax danoo laga leeyahay la arag dii tamirayni laba maro oo maaragtay duugowday qaba low aqsama cala allahi laa bara haddii uu ilaahay ku dhaartay ilaahay dhaartaa uu fulinayo ninkaa inta qabanaan dhahno ilahay ku dhaaro tan loo yimid waa madaxdii ciidanka baaleyniho maanta xal kala ma hayn ku dhaara ilaahay inuu maaragtay meeshaan ugu guuleeyo inuu ka warwareegto damca waa diiday waa ku dhaartay in lagu guulaysana wuxuuna kula dhaartay inuu ku dhimanhayo intaa markii ay dhacday oo habeenna la joogo ayaa waxaa soo dhacday fallaar meeshii magaalada dhexdeeda fallaar baa ka soo dhacday abu muusa alashcari waa la furay warqad baa ku jirta nin reer furusaha soo diray wuxuu leeyahay meeshaan sidaad ku geli lahaydeen baan idiin sheegaya haddaad aniga iyo xoolahayga iyo reerkayga ii nabadgelinaysaa
war maxaan samaynaa ciidanka ninkii xukumay abu sabrata bin ruham baa la dhihi jiray radia allahu tacaala wuu u yeeray wuxuu yidhi warqadana noo timi maxaan ka samaynaa waxaan ka samaynaynaa buu yidhi ayadii kale aan qorno waa lagu nabadgelina meeshiina ha lagu rido waraq baalkii gabuunkii waa lagu tuuray gabuunkii waa lagu tuuray cabaar baa la sugay nin socdaa yimid marka waa hela warqaddii ninkii waa yimid wuxuu yidhi yani waxaa loo qoray ammaan baa tahay imow waa yimid wuxuu yidhi dhegeysta meeshaan horta meel la geli karo ma aha ciidan xoog laha jooga waxaan rabaa nin dabaasha yaqaan oo khatar ah oo geesi ah oo asagoo kale aan la arag oo fahmo badan oo aan meesha geeyo wax walba soo tuso oo hadhowna isku soo laabto laakiin qof caadi aan ahayn waa la raadiyey wuxuu doortay nin la yidhahdo majza'atu bnu thawr haliyey aan caqligal ahayn wey soo dabagal buu yidhi meeshaa marka la socdo mararka qaarkood waa inaad lumbataa waa mugdi waa biyo waa la leexleexanaya wax tegi kara lama arko haddii xataa la taga si looga soo laabto ma sahlana aduu ninkii waa kaxeeyey magaaladii buu geeyey albaabadeedo dhan buu soo tusay wax walbuu sameeyey marka ninkii ciidanka xukumay ee la oran jiray saxaabiga ahaa abu sabra radia allahu tacaala canhu majzaa markuu dirahayay wuxuu yidhi dhegeyso ninkaa raac macluumaadka noo keen waxna ha samayn wax ilaahay abuurtay samayn waaye waxaan arkay buu yidhi saan u socday baan qasri baan kusoo baxay yidhi markaasa waxa ka soo baxay buu yidhi nin dharka uu qabo iyo quruxdiisa iyo adyaabaysa waa ogaaday buu hormusaan inuu yahay ninkii meesha xukumay falaariya hadda waa wataa moogta markaasaan xasiliyo shaydaankan mad markaasaan ballantiis waa xasuustay anaa iska daayay hadda ka hor xudayfatu bnu lyamaan radia allahu tacala canhu ayaantii khandaq soo nebigu uma dirin uma dhihin khabarkooda ii keen gaaladaas tilaabanaha qaadi abu sufyaan oo dayacan baan arkay buu markaas markaan qaansada isaaray baan warkii nebiga soo xasuustay markaasaan iska daayay adigu majzaa waa soo laabtay khibdadii buu keenay meeshii la marhayey marka ciidanka waa la habeeyey salaada fajarka ka hor ayaa meeshii la galay dabaal baa lagu galhayaa biyaa la marhaya qaar badan baa ku dhimanaya waagu markuu dilaacay fajarkii ay tahay waxay ka warhayaan ciidankii muslimka oo albaabadii inta furaan bay dalaq yidhahdeen aba lagu bilaabay maalintaas salaad subaxa salaatulkhawf baa la tukaday laba tukan marka de qaar anas bin malik baa yidhi abu muusa baa yidhi kun fatxi waxaa iga fiicnaan lahayd labada ragco aan tukado waa tukan kari waaye markii qoraxda soo dhacday kadib bay tukadeen marka waa ku guulaysteen dagaalkii ciidanka waa jebiyeen muxuu sameeyey ninkii marka hormusaan qasrigiisii buu galay horta intuusan qasriga gelin dagaalkii wax ka gala isaga laftiisu waa geed balaayo baraa bin malik bay isku soo baxeen waxbuu damca inuu ku dhufto waa la waayey asagaa ku dhuftay baraa bin malik ninkaasaa dilay hormusaan baa dilay majza'atu bnu thawrna asagaa dilay laakiin ciidankiisii waa jabay kor buu galay meel buu galay wuu soo qayliyo waa hadlay wuxuu yidhi dhegeysta 100 waxaan haystaa buu yidhi gabon 100kaasna anugu laba gaf buu yidhi 100 qof baan ka dilaya markaas kadib baa idilaysaa haddii kaleto waa isdhiibahayaa waxaan idhaahda iga yaab sheeg baa la yidhi wuxuu yidhi anugu adinka idinkuma kalsooniya cumar ha la ii geeyo ama hay dilo ama hay daayo waa la ammaan geliyey kaasaa lagu ammaan geliyey sayid cumarna waa loo sheegay magaaladina waa la furtay rag baa loo dhiibay uu madax ka yahay anas bnu malik oo uu walaalkii dilay ninka cadowga ahaa oo mar walba ballanta ka bixi jiray oo shaytaanka ahaa waa la kiciyey waxaa la geeyey madiinatu munawara sayid cumar maba arki karaba ninkan
haddii hadda xataa lasii daayo ama lala heshiiyo balaayadii uu bilaabaya. bas hadal adag buu ku yidhi sayd cumar, yaa caduwallahi waxbuu yidhi. marka wuxuu yidhi waa oomanaya biyaha laysiiyo, siiyuu yidhi biyaha. biyihii marka saa loo qabtay buu wuxuu yidhi biyaha intaan ka cabayo inaad nabad gelinaysid ii ballan qaad. waa ballan buu yidhi. koobkiibu haraatibuu ku dhiftay, saasuu u tuuray, khalaas maba cabinba. war waxaas ku baxsan maysid buu yidhi, waxaas kuma baxsanaysid, ballan baad iga qaaday inaan biyahaas ka cabo inaad dilayn. kaa yeeli maayo yidhi, shaytaan baa tahay, waa muraawaqa iyo waxaad samaynaysaa iyo dhagar. qofkii ugu horreeyey oo sayd cumar la hadla oo ku yidhahda waa lagaa gar leeyahay anas bin maalik buu ahaa radia allahu tacala canhu. yaa amiirulmu'miniin adaa ballan qaaday buu yidhi, ninkaan faraha ka qaad, la dili maaye. saxaabadii saasay yidhahdeen, ballantaada ku joog buu yidhahdeen. yani fiiri, madrasadii nebiga ka soo baxay calayhi salaatu wasalaam, ballanna ka bixi mahayaan, waa cadowgii ugu darnaa. adugu hormusaan uu islaamay oo kadib yani qisooyinkiisu waa iska dheer yihiin. marka tustur iyo baraa binu maalik, nadara allaahu wuxuu yidhi ilaahay ha nuuriyo wajhahu wejigi albaraa binu maalik fi ljannati, jannada ilaahay ha ku nuuriyo. wa aqara caynahu ishiisana ha ku qaboojiyo bisuxbati nebiyihi nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam, aragtidiisa calayhi salaatu wasalaam. waradia allahu canhu waardah. wallahu subxaanahu wataala aclam. wsala allah ala sayidina